بسم الله الرحمن الرحيم maanta khamiisa waxaan halkan u imid aan soo boqday xarunta Sab TV inaan ka hadlo ama aan ka ilaado dhowr kelmadood arrintii argagaxa lahayd ee ku dhacday marxuumad Marwo Najma Cabdillaahi oo gacan ka xaqdarini dishay sida la wada ogsoon yahay marka koowaad tacsiib aan u dirayaa qoyskii iyo eheladii iyo qaraabadii iyo laxda iyo lashaba waan u diraya tacsiib aan u diraya tiiraanya leh waxaan reer Cabdillaahi u sheegay inaan la qaybsanayn hadii aan nahay difaaciyaasha xuquuqda aadamaha Soomaaliland inaan la qaybsanayn tiiraanyada waxaan kaloo doonayaa inaan bayaamiyo ama aan daha ka rogo bariyahan dambe Soomaaliland waxa ka socdo gumaad loo geysanayo haweenka marwooyinka hablaha hooyooyinka kuwa uurka leh kuwa umusha ah kuwa da'da ah gumaad loo geysanayo oo ayna dawladdu wax talaabo ka qaadinin hadii aan dul maro burco wixii ka dhacay looga inantii lagu dilay wali arrinkeedii meel lama dhigin tii lagu dilay habar heshay meel lama geenin eeriyada caynaba kuwii hargeysa lagu dilay kuwii urka lahaa hablihii inantii u shaqeynaysay walaaladeed oo dhimanka wax ka qabo oo baska lagu dilay waxba lagama qabanin ninkii kale isaguna gabadha urka la dilay waxba lagama qabanin hadii ilaahay ku roon yahay luqaya area luqaya ninkii gudinta ku dilay waxba lagama qabanin almost waxaana ka loo diiwaan gashan 12 dumar ah oo sida waxshnimada argagaxa ka baxsan shariicada islaamka loo dilay anshaxa islaamka anshaxa Soomaaliland laqan walba ka baxsan loo dilay ilaa ay hadda waxba laga qaban oo aan cadaalad la horkeenin waxay u sii soconayaan kufsiga wadagtiina uu korlay hadda halku alays baa soo baxay leeyahay hadal baa ka dambeyn waxa marka la sameeyo waxa la oranay hadal baa ka dambeyn waa laga wada hadlayaa ko horta waxaan ugu baaqayaa inta hadda gacanta lagu hayo dawladdu inay go'aan ka soo saarto 12 ka arrimood inaanan laga heshiinin oo cadaalad la mariyo hadii cadaalad la mariyo waxaan way yeelanayaan hadii cadaalad la mari waayo wada hadallada haddaba soconayo ay socdaana waxay noqonayaan arrin daahfuran oo socoto oo aanan go'in halkaan cuquba ayaa ka soo kordhaysa mid waxaan oranayaa dawladda mid waxaan oranayaa qoyska midna waxaan oranayaa dumarka midna waxaan oranayaa garsoorka mid waxaan oranayaa qoyskii waxaan kula hadlay qoysaskii hablahoodii la dilay oo idil waxaan ugu baaqayaa inay la qaadanin mag yaan ugu baaqayaa kulana talinaya culimada waxaan leeyahay salaada jimcaha ay berito ku beegan ku soo qaata gumaadkan lagu hayo dumarka iyo shariicada islaamka waxay ka qabto culimadana baaqaasan u diraya dawladana waxaan leeyahay qabiilooyin wada hadla dalka mas'uulka ma aha ummad baa la doortay dawlad baa la doortay xukuumad baa la doortay wax kasto khalad yimaada mas'uuliyadeedu waxa iska leh madaxweynaha iyo dawladdiisa iska leh taana hal lagu bishaaraysto shacabkana waxaan oranayaa war gumaad baa soconaya dumarkii lagu haye aan meel ugu soo wada jeesano aan dumarka iyaga difaacan waa dhashay way kula dhasheen way ku dhaxday way ku dhashay meel la kama jirto anigu waxaan uga damqaday sida inantaydo kala uga damqaday sida hooyadaydo kala uga damqaday sida walaashay kala uga damqaday nin kasta oo Soomaaliland joogan waxa laga doonayaa inuu dareen noocaas oo kala u yeesho dumarkana mid baan oranayaa war cod midaysan yeesho gumaad baa idinku socday gumaadkaas sidii aan uga hortagi lahayn kaaliyo soo baxo lagu taageera diyaar baan annagu nahay advocacy inaan la sameeyno inaan xuquuqdiina soo celino kutaab gaabkana waxaan leeyahay rag la wareegayo ninku haduu naag dilo loo dili maayo waa loo dilaya shariicadu sidaas ay qabtaa taana ku bishaaraysta qof kasto qof dilo waa loo dilaya an-nafs bil-nafs weey lama discrimination ma jiro kutaab gaablow room lagu ma hayad ku exercise gareysid marka hadalkayga waxaan ku soo koobayaa arrinta inanta maanta oo khamiis inay aqal gashay la rajeeyay way diyaar garowday ciidii baa lagu jiray waa qashay ahayd awal waxa dili jiray dad cadeysima ama aanan salka meesha ku heli dilku maanta wuxuu soo gaarayaa
dadkii garsoorka joogay saraakiishii sarsare iyo wax laynaysa beri maxaa ku xigay what is the next waa la iska garan karaya waxa ku xiga marka anigu waxaan hadalka ku soo koobayaa arrintaa iyada ah cadaaladda sarreynta cadaaladda ha la doono sarreynta sharciga ha la doono sharciga ha lagu kala baxo shareecada islaamka waxay qabtaa ha la xoojiyo ha loo midoobo cadowgan ummadda Soomaaliland ku soo kordhay ee ah gumaadka haweenka waa in laga hor yimaadaa annagu haddaan nahay difaaciyaasha xuquuqda aadamaha waxaan soo saarin lahaa ku dhibiyo arrinta laga hortagayo advocacy-na waan sameeynaa wadankoo idil in dadka noocaas oo u fikirayo idil ama mas'uul ha ahaado ama qayr mas'uul ha ahaado ama wuxuu doonaa in cadaaladda la dhansiiyo waxaana hubaal ah haddii cadaaladda dadka la mariyo inayna waxaan sii jirin waayo waxaan waxay tusbax go'ay u noqdeen wax cadaalada la marin ma inta kii soo dhacay midna go'aan kama dambaysi lagama gaano oo laguma fulinin aad baan ugu xumay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan tacsiideynayaa reerkii ay ka baxday inantii u dambeysay waxaan ugu baaqayaa ha qaadanina mag wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qoonmaal islaam io fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam io fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber